kulan wacan daawada subax wanaagsan meel walba oo aad joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filmada hadana kale waxaa idin soo gudbinaa saakitool maxaa laga qoray arrimaha Bollywoodka kuwaas oo aan isdhigi karna xiiso weyn leeyihiin oo daawadayaashina barta tusmada filmada ku taxan waad la wadaagi kartiin hadda muuqaalkana waxaan ku bilaabi doonaa Shaaruqan ayaa dib wuxuu ila midoobi doonaa Bowman Irani iyo sidoo kale Sati Shah kuwaas oo ku midoobi doona filmka Rajkumar Hirani ee adduunkii Shaaruqan ayaa 2023 waxa uu tahay mid u gaar ah xidigana asagoo sidoo kale loo daawan doono 3 film kuwaas oo kala yihiin Batan, Javan iyo sidoo kale Dunki saddexdaas film ayaa waxay yihiin kuwa haatan saameyntooda wata sidoo kale Dunkiina ayaa wuxuu yahay mid ugu sareeya kuwaas oo bayo waxa director ka ah laba filmadiisa blockbuster-ka noqdaan ee Rajkumar Hirani kuwaas oo sidoo kale xidigan lagu yaqaan in filmadiisa ala box office-ka wacdare ka dhigaan filmkan ayaa haatan waxa uu socdaa duubistiisa idoo sidoo kale warar xiiso leh filmkaasi ee ka soo kordheenba warar ay qortay warbaahinta qaranka waxa uu qorayaa in jalaaya sida Bowman Irani iyo sidoo kale Sati Shah lagu arki doono in ay mar kale kala soo muuqan doonaan shaashada xidiga Shaaruqan taasoo sidoo kale xiiso leh in Shaaruqan uu labadan xidig oo sidoo kale oo la soo qaatay filmo dhowr ah ama iskala soo shaqeeyeen filmo dhowr ah markaana ay taa kuwa mar kale dib u mudoobay muddo sanad ah warar qaar waxa ay qorayeen Satish uu doorkiisa filmkan uu yahay mid lawyer reer London ah kaas sidoo kale u dagaalamaya dadka sida sharci darrada ku soo gala ee Asiaanka ah ee gudaha London halka Bowman Irani filmkaas uu yahay mid doorkiisa uu yahay door adag oo macallin uu yahay kaas luqadda Ingiriiska bixiya oo yahay dhalinyarada reer Punjabna luqadda Ingiriiska baraba Shaaruqan ayaa Bowman Irani waxa uu markiis ugu horeeyay kala shaqeeyay filmka Mehona kaas oo la daawado 2004 sidoo kale waxa sii xigay filmada kale oo ay iskala soo muuqdeen kaliyin filmadaasi Firzara 2004 la daawada Don oo la daawado 2006 Don 2 oo la daawado 2011 Happy New Year kaas oo la daawado 2014 iyo sidoo kale Dilvala kaas oo la daawado 2015 xaflad dhacday muddo bil ka hor ayaa Bowman Irani waxa la weydiiyay meediyaha ay weydiiyeen hadduu filmka Dunki oo door ku leeyahay wuxuuna xidiga uu sheegay in uu director Rajkumar Hirani ee kala shaqeeyeen ama uu kala shaqeeyay muddo 6 filna sidoo kale uu sheegay inuu haatan oo filmka Dunki kala shaqeyn doono wuxuuna sheegay inuu director-ku yahay saaxiibkiisa sidoo kale uu yahay director fiicanba sidoo kale intaas uu suuraa in Dunki uu yahay film ku saabsan mowduucan hore looga hadlin wuxuu sidoo kale uu sheegay inuu yahay film madadaalo waxaana sidoo kale uu sheegay madadaalo intaas ka badan kaas oo Rajkumar Hirani filmaantiisa hore aan lagu arkinba wuxuuna sheegay in qof walba uu ku raaxaysan doono sidoo kalena nolosha waxyaabaha ku saabsan filmka aad ku ogaan doontaan ama aad ka fahmi doontaan uu sheego wuxuuna sheegay sidoo kale inuu sugi laayabo in filmkaasi la soo fasaxabo markaan Shaaruqan iyo sidoo kale xidig kale Sati Shah ayaa waxa ay soo wada qaateen waqti dheer iyagoo sidoo kale ka soo kala muuqda filmada Kabina kaas oo la daawado 1994 waxaa sii xigay filmka kale Dilvala Dulhania Le Jayenge kaas oo la daawado 1995 waxaa sii xigay filmka kale ee Bribi Dilhe Hindustan ee 2000 la daawaday Jalta ee 2003 la daawaday Kalhona Ho oo la daawado 2003 Mehona oo la daawado 2004 iyo sidoo kale Shanti oo la daawado 2007 waxay sidoo kale ka wada shaqeeyeen filmka kale ee Raiwan kaas oo la daawado 2011 sidoo kale Shaaruqan iyo sidoo kale Sati Shah ayaa wuxuu doorkooda filmka Mehona wuxuu yahay mid aan ilaa hadda aan la hilmaamin Sati Shah ayaa sidoo kale wuxuu ka shaqeeyay filmka Kabi kaas oo la daawado 2011 waxaana soo saaray shirkadda Shaaruqan ee Red Chillies Entertainment Dunki ay sidoo kale waxa door ku leh xidigta Taapsee Pannu iyo xidig kale Vicky Kaushal wararka ay waxay sheegayaan in Shaaruqan oo sidoo kale uu doorkiisa filmkaas mid geesinimo uu ku soo bandhigi doono wuxuuna sidoo kale kala shaqeyn doonaa Maharashtra kaas oo sidoo kale 20 iyo 5 maalin halkaas lagu duubi doono filmkaas ay waxa lagu wadaa in la daawado am theater la saar December 2023 ugu dambeyn waxaan eegi doonaa maxaa ka jira warar sheegay in xidig Sidharth Malhotra iyo sidoo kale xidigta kale Kiara Advani ay isguursan doonaanba
labadan xidig ayaa waxay yihiin xidiga jacayl oo ka wada dhexeeyo sidoo kalena labadan ayaa waxaa lagu wadaa in ay isguursadaan April 2023 sida ay qortay shabakada Bollywood Live. Dad si gaar ah ugu hadlay ayaa arrintaasi waxay sheegeen in labadan xidig ay is aroos doonaan. Labadan xidig ayaa waxay ka qirteen inuu xiriir ka dhexeeyo barnaamijka Cafe with Karan kaas oo seasonkiisa ugu dambeeyay ee toddobaad ee dhawaan soo gabagaboomay ee labadooda ay halkaasi ay ku xariiqeen. Kiara Advani waxay sheegtay in markaan ay rabto inay guursato sidoo kale ay guursan doonto xidiga Siddharth Malhotra halka Shahid Kapoor iyo sidoo kalena xidig Karan Johar ay ku martiqaadi doonto xafladda gurigooda taas oo ka qaadan doona heesta Doolare. wararka sidoo kale intaas waxay ku dareen Kiara Advani sidoo kaleba xidiga Siddharth Malhotra xiriirkooda uusan ahayn mid aad u furan asaatee labada xidig ay waxay yihiin kuwa muddo xiriir oo ka dhaxay 3 sano ah kuwaas oo sidoo kale ugu dambeyn raba inay ku guursadaan gurigooda lagu wado inuu ka dhaco gudaha Delhi idoo sidoo kale aan lagu martiqaadin doonin xidigada Bollywoodka kala shaqeeyaan ilaa laba dhowr ama dad qaar ay u dhow maahan sida wararka ay qoreen Siddharth iyo sidoo kale Kiara Advani ayaa muddo xiriirkooda dhaxeeyay waxaana sidoo kale labadan xidig ay ka soo muuqdeen filmka Shershaah kaas oo sidoo kale filmkan uu noqday mid isfaham weyn oo ka dhaxeeya kaas oo qof walba ku ogaadeen in labadan xiriir jacayl oo ka dhaxeeyo kaas oo sanadkan la daawaday bacdarna ka dhigay qaybaha platformska ee filmkan lagu soo fasaxayba. intaanu ku soo xirina daawada wararka ugu dambeeyay saaka laga qoray arrimaha Bollywoodka kuwaas oo aan xiiso lahayn daawadayaashna halkan ku taxamala wadaag kartiin waad ku maasintiin alaaba sida muuqaaladeena u daawataan.